wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk Soomaaliya Dr. Fawzi Abikar Nuur oo kulan la qaadatay qaar ka mid ah wasiirada caafimaadka dowlad goboleedyada dalka ka jira ayaa waxay kaga warbixisay xaaladda kiisaska COVID-19 ee dalka. Fawzi Abikar Nuur wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in kiisaska COVID-19 ee gobolada dalka toddobaadadii la soo dhaafay uu soo taray, waxaana ay sheegtay in taasi ay sabab u tahay oksijiin la'aan ka jirta goobaha caafimaad ee dalka, taasoo bukaanada ay la ildaran yihiin xanuunka COVID-19 una baahan yihiin neefta macmalka ah. Dr. Fawzi Abikar Nuur ayaa waxa ay rajo wanaagsan ka muujisay in dhawaan dalka la keeni doono warshadihii sameynayay oksijiinka si loogu gudbo dhibaatooyinka soo laabtay ee oksijiin la'aanta ee ka jira goobaha caafimaad ee gudaha dalka. Waxa ay soo jeedisay in madaxda dowladda federaalk Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada ay sameeyaan iskaashi buuxo oo looga hortagayo faafidda xanuunka COVID-19, iyadoona ballan qaaday in kaalin wanaagsan ay ka qaadan doonto sidii xanuunkan COVID-19 looga ciribtiri lahaa guud ahaan dalka, kaasi oo muujinaysa saddexaad soo gaaray gudaha dalka. Dowladda Soomaaliyeed ayaa waxa ay ilaa haatan diiwaan gelisay dad gaaraya 16,195 qof kuwaas oo la ildaran xanuunka COVID-19, waxaana sidoo kale dadka ka caafimaaday xanuunkan ay gaareen ilaa 7,888 ruux, halka dadka u dhintay ay horaan diiwaan gelisay wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk Soomaaliya ay yihiin 870.